maalin adaa banaanka lagu tuuray banaanka ayadoo dhar wadanaa la tuuray ilaahay wadaa been sheeg nasiiba igu rida weligii social media ma istaagin maanta laakiin gabadheed cadaalad u baahan maanta mustaqbal maliya adduunkan wax aan rajo ka leeyahay mal rajadeedna adiga qaadateen waa idin bariya hal qof adduunkan ka qabo hooyadii waan maanta hadday iga dhimato rajo kale adduunka aan ka leeyahay male daqiiqada ka hor ayay soo duubtay muuqaalkan wejigeeda markii aad fiiriso waxaa ka muuqanaya argagax aad u ballaaran waxa ay leedahay rajo kama lihi adduunkan oo waxa aan ku sharaf beelay dunida isla mar ahaantaana ma jirto cid wax ii qabatay hooyaday ayaa lagu fadeexaynayaa baraha bulshada sidaa ayay leedahay gabadhan idiin muuqanaysa isla mar ahaantaana lagu magacaabo Fahmo oo tiktokarada ah isla mar ahaantaana wiil uu u geystay dhibaato faraxumayna sidaasina ay uga soo tagtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyadoo loogu sheekeeyay dadka qaarna sida la sheegayo iyada lacaga lagu dul cunay taasi oo laga dhigayay lacaga iyada loo aruurinayo waa sida aan kugu qeexi doono muuqaalkan daawade ku mahadsanid daawade intaan u gudagelin muuqaalkeenan fadlan muuqaalka like oo la wadaag saaxiibadaada mahadsanid kulanti habboon saaxiibada aynu jecelnahayow meel kastoo aad dunida daafaheeda ka joogtaan ku soo dhawaada channelkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media oo alaaba aad kala socotaan warbixinada xasaasiga ah isla mar ahaantaana markaasi taagan sida aad ula socoto isla mar ahaantaana aad nagu tixnaato muuqaalada iyo warbixinadan halkaan soo gelino daawade ku soo biir channelkeena Ducaysana Media oo subscribe dheh kana mid noqo asxaabta inagu xiran oo follow dheh page-keena Ducaysana Media ku mahadsanid daawade muddooyinkan dambe waxaa soo ifbaxay maamo sheegaysa inay iyadu dhashay Fahmo fiicanay oo sida aad ogtihiinba daawadayaal wiil arxan laawo ah uu ugu geystay kufsi isla mar ahaantaana muuqaal uu ka duubay gabadha oo ku sugneed magaalada Muqdisho balse haatan ku sugan gudaha magaalada Nairobi ee cariga dalka Kenya gabadhan oo careysan oo daqiiqada ka hor muuqaal soo duubtay ayaa waxa ay sheegtay in muuqaalka baraha bulshada lagu wareejinayo uu yahay hooyadeed isla mar ahaantaana aysan jirin iyada qudheeda cid wax u qabatay maamada dhashay Fahmo oo ka hadlaysay in iyada lacaga badan lagu kor qaraabtay isla mar ahaantaana aan wax loogu qaban oo ay la jiifato asxaabteeda oo ku nool magaalada Nairobi ayaa waxa ay sheegtay in arintaas ay tahay mid fool xun una baahan Soomaalida guud ahaan in ay u muujiyaan damqasho balse Fahmo oo daqiiqada ka hor soo gelisay barteeda TikTok muuqaal ay kaga hadlayso arinkan ayaa si waadix ah waxay u sheegtay in hooyadeed waxyaabaha ay ka hadlayso idil ay yihiin kuwa saxan waxaana ay sheegtay in dunidan aysan u oolin wax rajo ah isla mar ahaantaana ay ka rajo dhigtay adduun oo idil waa sida ay iyadu qeexayso ila daawade muuqaalkan oo daqiiqada ka hor ay soo gelisay Fahmo السلام عليكم والسلام دمان Soomaaliya meel kasta ku nooshin caaw maanta waxa halkan soo istaagana wax kale ma aha qabri ninkii loo wada maxal lama kala qariyo qofka maalmaha dhan arkaysin social media wareejinaysan hooyadeed waa ma ah kan adeysin qof kale ma hooyadeed waa qof dhabankan yeelo waa qofkii soo koriyo waa runta daas ku sheegno hooyadeena inay hadashay niso calaacash maxaa keenay hooyadeed lacageys aragay urina lagu nabay teeyo gabadhaadii gadatay qof la dhahay minta u taala dameerka hooyaday ma gadanin maalinta uurkeeda aan lahaay aabay ku furay qof ila soo koriyo mal waalid iga daba socdo mal qof wax igu sii mal runta fiican hooyaday kalaam kasta sheegta run waa Soomaali Maxamed Qabri qof kala lama kala qariyaan ani wiliga eedada inta wax soo rasiima dheen aabay inta wax soo rasiima dheen feeraas ugu yaalo maalinta iskuul dhameeya maxaa bilaabay in aan dhaqaajiyo ma fahanteen waa idin bariya hooyaday dhaaf hal qof aqoon inda kala mali wax rajo kale adduunka aqlaya maanta mustaqbal mali adduunkan wax rajo kale mal rajadeedna adiga qaadateen waa idin bariya hal qof adduunkan ka qabo hooyaday waa maanta hadday iga dhimato
ورجع كلا أدونك أكلا يا ماله بليز أم بليز أنا وإذا ما قدرني وحاجة قطرنا حدي الرو كوبي قبيل إيحي كوبي إلا تشتودي جيجا هاي قط كوبي إيه اللي أنا قبيل جيجا ما هن واللي حدي جري قبيل أنا قف كل صاحب كم كل صاحب رنا ومالين تدي بيقول على قبيل جيجا ميل الناس ومالين محمد ودنا إيه لسه كوبي قبيل جيجا هاي ندي جيجا قطرنا طافيعا gabar kasto jidka igu aragta jaceelka ii muujiso maaha inaa isku qabiilnahane maxaa waay inaa gabar Soomaaliyada walaasheed ah wiil kasto jidka igu arka jaceelku ii muujiyo maaha inaa soo dhalanay isku qabiilnahana maaha kuwa qabiilkayga adduunka ayaga igu nacab ayaga ay gateen wax kasta ayaga igu dhibaateen ummadda Soomaaliyada walaal ii noqdo saaxiib ii noqdo wax kasta ii noqdo ma fahanti maanta aaba ma haysti qof haysta malaani waa idig bariya runta fiican hal qof adduunka ka haysto maxaa hooyaday qof wax uga baahanayna oo jirin lixdeeda lixaad ilaahay wuu isiiyay naag weyn 20 jir waa shaqaysan karaa waa idin bariya please axsan hada ii sameynaysin Soomaali Maxamed hooyo waa idin dhashay hooyo Soomaaliyeed waa hooyada ii nabadgeliyo dhii kara qabtaa neefay qabtaa weliga hooyada qof ayaan ma qabin weliga intaan soo horistaa game ma dheelin qof lacag ma weydiisan anoo game dheelay ma aragteen waa idin bariya hooyada bas ii nabadgeliyo hadii wax gadasho la dhahayn ani ma soo horistaa mar kale ma dhahan ninkaas saas igu sameeyay kuwa igu dhiig inta ay gateen lacagteedii qaateen ninkii waxa way igu sameeyeen dhoofiyeen hal maalin intaan soo horistaa ma nirin cudub nafsi ay ugu rideen waa la rabaa gabar yariis inaad soo hal ay gaarsiiseen hal qof haysta ku nafiso maanta adduunka rajada ku sii saaranaha ma xataa hooyada marra ka iska siilaha laakiin halka raja haysta waa bariya please weliga wax mid ka codsan hooyada geesta kale muuqaalka baraha bulshada qabsaday oo ahaa hooyada dhashay Fahma ayaa waxa ay kaga hadlaysaa dareenkeeda hooyanimo ee kaga aadan Fahma oo aan wali helin wax hiil iyo hoo ah adaa banaanka lagu tuuray banaanka ayadoo dharkooda la tuuray ay wada beersheeg basiiba igu rida weliga social media bista maanta laakiin gabadheed cadaalad u baahan tahay ku mahadsanid daawashada muuqaalkan fadlan muuqaalka la garee daawade oo ku soo biir channelkeena Ducaysana Media oo subscribe gareyso rukumo gambaleelkana u furo like share page-keena Ducaysana Media wixii aragtiyana inagula wadaag qaybta aragtida dadweynaha ee commentiga ku mahadsanid daawade dhiirigelintaadu waa inoo muhiim